بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada cashiradii taxanaha ahaa ee inoo soo socday maanta waxaanu baranaynaa cashirkii shanaad lesson 5 waa cashirkii shanaad waxa uuna ku saabsan yahay verbs ficilada verb waa ficil a verb ficilka is an action word waa erey oo markaasi ficil noo sheega action waa ficil word waa erey it tells us it wuxuu u noqonayaa verbka tells us wuxuu noo sheegaa what waxa uu someone qof or ama something shay is doing qof ama shay waxa uu samaynayo ayuu noo sheegaa ficilku a verb is an action word ficilku waa erey ficil ah ama ficileed it tells us wuxuu noo sheegaa what someone or something is doing waxa uu qof ama shay samaynayo marka ficilada ama verbska waxa ay noo sheegaan waxa uu qof ama shay uu samaynayo marka ficilada si waadixa ama faahfaahsan ayaanu u gudageli doonaa oo aanu u baran doonaa laakiin waxa aan jeclahay marka hore in aan baranno qayb ka mid ah ee ficilada oo la yidhaahdo verb to be waa ficil oo markaasi noo sheega ahaansho wax la samaynayo nooma sheego laakiin ahaansho ayuu noo sheegaa kuwaasi waa kuwo yar oo kooban marka waxaan jeclahay marka hore kuwaas qofkii aan aqoonin inuu barto there are waxaa jira verbs ficilo that tell us oo noo sheega in a state of being xaalad oo ahaansho state waa xaalad being waa ahaansho instead bedelkii of action ficil bedelkii ay inoo sheegi lahaayeen ama waxa shay ama qof uu samaynayo waxay noo sheegeen waxa uu qofkaas ama shaygaasi uu yahay ama xaaladda uu ku sugan yahay waa state of being waa sida uu yahay there are waxaa jira verbs ficilo that tell us oo inoo sheega in a state of being xaalad ahaansho instead of bedelkii action oo ficil they are waxa ay yihiin they iyaga are waxa ay yihiin am is are was were marka ficiladani kulligood waa isku macno waa xaalad ahaansho laakiin waxaa loo kala isticmaalaa waxa ay qaadataa oo loo isticmaalaa aniga amta waxa ay loo isticmaalaa ista waxaa loo isticmaalaa he she iyo it are waxaa loo isticmaalaa oo ay raacdaa we you iyo they was waxaa loo isticmaalaa labadan ayda iyo groupkan oo he she iyo it laakiin waa ista ficilkeedii oo lasoo dhaafay ista waa ahaansho wostana waa ahaan jiray ama ahaa marka was waa basti oo waa wax lasoo dhaafay isna waa wax hadda jira oo socda ama wax markaasi hadda jooga wordan iyadana artan ayay u tahay basti ama wax lasoo dhaafay oo wax lasoo dhaafay haddii aad ka hadlayso bedelkii aad are dhihi lahayd were baad isticmaalaysaa marka waada waxay qaadataa groupkan oo we you iyo they ayay raacdaa oo tusaalayaal ayaanu ka bixin doonaa laakiin tusaalayaashaasi inta aanan ka bixin
waxa aan jeclahay in aan idin kala sheego wax la yidhaahdo first person. Qofka koobaad waa qofka hadlaya first person. Ingiriiska marka la yidhaahdo naxwaha ama grammarka dadka wuxuu u kala qaadaa 3. waxaa jira first person oo ah qofka koobaad ama qofka hadlaya, waxaana weeye qofkaasi wuxuu isticmaalayaa ama I ama we. qofka lala hadlayo waxaa la yidhaahdaa second person, qofka labaad. second person waa qofka labaad, wuxuuna noqonayaa you, adiga. qofka saddexaad waa midka laga hadlayo, ama ha joogo ama ha maqnaado, laakiin waa qofka lala hadlayo, laakiin qofkaasi si toosa loolama hadlayo waa laga hadlayaa. marka qofkaasi wuxuu noqonayaa third person, qofka saddexaad. third person ayaa la yidhaahdaa. kuwaasna waa groupkan oo he, she iyo it. waxaa la yidhaahdaa qofka saddexaad, waa qofka laga hadlayo. marka waxay qaadataa first person marka uu yahay keli oo I keliya ay tahay, ayaa raacaysa. laakiin qofka koobaad oo ah jamac oo we ah annaga, r ayay qaadanaysaa. qofka labaad oo ah qofka lala hadlayo wuxuu qaadanayaa r marka uu presentiga ama waqtiga la jooga yahay. bastiga ama waxa lasoo dhaafay marka uu yahayna were ayuu qaadanayaa, were. third person oo ah qofka saddexaad ama qofka laga hadlayo waxa uu qaadanayaa is marka uu presentiga yahay ama waqtiga la joogo. bastiga marka uu yahay ama wax lasoo dhaafayna was ayuu qaadanayaa, was. marka tusaalayaal, for example waa tusaale ama tusaalayaal. for example, the road is long. the road, jidku, is long, waxa weeye mid dheer. marka istaas waxay sheegaysaa ahaansho. marka jidka waa wax dheer, jidku wuu dheer yahay. she, iyada, is in the house, guriga ayay ku dhex jirtaa. she is in the house, guriga ayay ku dhex jirtaa. iyada guriga ayay ku dhex jirtaa. she is in the house, guriga ayay ku dhex jirtaa. they, iyaga, are, waxa weeye at the market, suuqa ayay joogaan. they are at the market, suuqa. iyaga waxay joogaan suuqa. he, isaga, is at the airport, isaga wuxuu joogaa elaboorka. he is at the airport, isaga wuxuu joogaa elaboorka. you are innocent, adiga waxaa tahay qofaan dembi gelin ama aan dembi lahayn. you, adiga, are, waxaa tahay innocent, qofaan dembi lahayn ama aan dembi gelin. marka waxa aanu ka hadlayno waa is marka uu yahay shayga hal xabo. haddii jidadku way dhaadheer yihiin aan dhihi lahayn oo jidad badan aanu ka hadli lahayn, r baan isticmaali lahayn. marka maadaama jidka uu hal yahay, is ayaanu isticmaalaynaa. she, iyada, maadaama ay keligee tahay, is ayaanu isticmaalaynaa. haddii ay badnaan lahaayeen waanu isticmaali lahayn r. they, iyaga, maadaama ay badan yihiin, r ayaa la isticmaalayaa. they are. he, isaga, maadaama uu keligiis yahay, is ayaa la isticmaalayaa. you, adiga, are ayaa la isticmaalayaa. you are. you-da adiga oo keligaana way noqon kartaa, idinkana way noqon kartaa, laakiin you-ba hadday tahay r ayaa la isticmaalayaa. you are. marka tusaalayaal kale ayaa noo soo socda oo ah hadda ficiladan waa present waa waqtiga hadda la joogo. presentiga weeye waqtiga hadda la joogo, kuwan ayaa la isticmaalayaa. marka ay bastiga yihiin ama wax lasoo dhaafay laga hadlayana
tusaalayaashii hadda ayaanu arkaynaa way noo soo socdaan. Okay, tusaalayaashii waqtiga lasoo dhaafay ama pastiga ah. Past waa wax lasoo dhaafay. Haddaanu arkaynaa the road jidku was wuxuu ahaa long mid dheer. The road jidku was wuxuu ahaa long mid dheer. Jidku wuu dheeraa. Wax lasoo dhaafay weeyaan. Wax lasoo dhaafay baa laga hadlayaa. She iyada was in the house. Iyada guriga ayay ku jirtay. Waa wax lasoo dhaafay. Waa waqti lasoo dhaafay. She was in the house. Guriga ayay ku jirtay. They were at the market. Iyaga waxay joogeen suuqa. Waa wax lasoo dhaafay baa laga hadlayaa. They were iyaga waxay joogeen at the market. Suuqa. He was at the airport. Isaga wuxuu joogay airportka. He was isaga wuxuu ahaa ama uu joogay at the airport airportka. You were innocent. Adiga waxaad ahayd qof aan dembi gelin ama aan dembi lahayn. You were innocent. Waxaad ahayd qof aan dembi lahayn ama aan dembi gelin. Halkan waxaan doonayaa inaan ku yar faahfaahiyo fikradda ah qofka koowaad, qofka labaad iyo qofka saddexaad. Marka naxwaha Ingiriiska dadka wuxuu u kala qaybiyaa saddex. Qofka hadlaya, qofka lala hadlayo iyo qofka laga hadlayo. Marka qofka laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa first person ama qofka koowaad. First person waa qofka koowaad. Second person waa qofka labaad ama qofka lala hadlayo. Second person. Second waa labaad, personna waa qof. Waa qofka lala hadlayo. Third person. Third person waa qofka laga hadlayo. Marka waxaanu nidhi qofka hadlaya waxa weeye waa I. Waa I marka uu keli yahay. Qofka hadlaya marka uu keli yahay ama singular. First person singular ayaa la yidhaahdaa. Waa qofka hadlaya oo keli ah. Singular. Qofka marka uu keli yahay oo isaga uu hadlayo waa I. Marka uu yahay first person plural, first sidanna waa loo soo gaabiyaa marka la qorayo. First person oo plural ah ama jamac ah waxa ay noqonaysaa we. Second person oo ah qofka lala hadlayo oo marka uu singularka yahay ama kelida uu yahay. Marka waxaa la yidhaahdaa second person singular. Qofka lala hadlayo ama qofka labaad oo keli ah waa you. Marka uu yahay second sidanna waa loo soo gaabiyaa. Second person plural oo ah jamac. Plural jamac weeye. Wuxuu noqonayaa you weeye. Third person singular. Qofka saddexaad ama qofka lala hadlayo oo keli ah waxa weeye waa he. Isaga. She iyada iyo it oo loo isticmaalo xayawaanka, waxyaabaha aan aqliga lahayn iyo shayaasha iyo waxyaabaha aan nafta lahayn. Third person sidana waa loo soo gaabiyaa. Third waa saddexaad. Person waa qof oo plural ah ama jamac ah. Waxa weeye they ayay isku noqonayaan. They. Marka waxaanu soo nidhi qofka koowaad ama qofka hadlaya oo keli ah ama singular ah wuxuu qaataa am. I am. Qofka koowaad oo plural ah ama jamac ah qofka hadlaya we. Marka ay jamac yihiin adiga oo koox ku dhex jira marka aad kooxda u hadlayso we ayaad leedahay annaga. Markaasi waa jamac waa plural. Waxa aad isticmaalaysaa oo ay noqonaysaa are.
we are. Second person singular qofka labaad ama qofka lala hadlayo oo keli ah wuxuu noqonayaa you adiga are u qaadanaya are. Qofka labaad ama qofka lala hadlayo oo plural ah ama jamac oo idinka ah are ayuu qaadanayaa. Qofka saddexaad qofka laga hadlayo third person singular qofka saddexaad oo ah keli oo aanu niri waa he, she iyo it waxa ay saddexduba qaadanayaan is. Qofka saddexaad oo plural ah ama jamac third person plural qofka saddexaad oo jamac ah waxa ay qaadanaysaa are. They are. Taasi waa marka ay presentiga tahay ama waqtiga hadda la joogo. Waqtiga lasoo dhaafay ama pastiga la yidhaahdo waxa ay qaadanaysaa I da waxay qaadanaysaa oo isku beddelaysaa was. Was ayay noqonaysaa I was. Waxaan ahaa hadda waxaan ahay I am. Waxaan ahaa I was. We da waxa ay qaadanaysaa marka ay pastiga tahay ama waqtiga lasoo dhaafay were. oo meeshii are ay ka ahayd waxay isku beddelaysaa were. You-da waa sidaas oo kale oo waxay qaadanaysaa were. Tanna waa sidii oo kale oo were ayay isku beddelaysaa marka ay past noqoto. Is tanna waxay isku beddelaysaa was. He was, she was, it was. They are danna waxay isku beddelaysaa were. Marka cashirkii maanta halkaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa insha allah mustaqbalka tusaalayaal badanna waanu ka bixin doonaa si faahfaahsanna waanu uga sii hadli doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.